madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu si toos ah ugu dhawaaqay xalay xabad joojin ka hirgelaysa gobolka Bariga Dhexe taasoo u dhaxaysa dhinacyada Iran iyo Israel oo 12 maalmood ee la soo dhaafay dagaalamayay. xabad joojintu waxay soconaysaa ilaa fiidnimada xilliga caawa ee geeska Afrikada Bari. waxay noqonaysaa midii koowaad ee la gaaro tan iyo markii 12 maalmood ka hor dhinacyadu ay isku wajaheen weerar celis toos ah isla jeerkaana weerarka ay lahayd dhinaca Israel oo weerartay qaybo kala duwan oo kamid ah magaalada Tehran subaxnimadii Jimcihii ee toddobaad ka hor. Israel waxa ay dhinaceeda shaacisay inay qaadatay xabad joojinta oo ay gabi ahaanba hakad gelinayso weerarada ay ku haysay dhinaca Tehran. Tabintan waxaynu ku eegaynaa 3 arrimood oo Israel ku kalifay inay qaadato xabad joojintan kooban, sababta keentay in xilligan heshiis lagu dhawaaqo iyo waxa ay arintan ka dhignaanaysaba Israel iyo faa'iidada xabad joojintan ugu jirta. Tel Aviv waxay si rasmi ugu dhawaaqday inay qaadatay xabad joojinta ka timid dhinaca madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. sababaha ugu waaweyn ee xabad joojinta Israel u qaadatayna waxaa ka mid ah in dadka loo ogolaado inay ka baxaan meelaha gabaadka ah ee dhufayska u noqday 12 maalmood ee la soo dhaafay ee ay ku dhuumaalaysanayeen si ay u raadsadaan arrimaha daruuriga ee laga maarmaanka ay u baahan yihiin oo ay ka mid yihiin cuntada, biyaha iyo adeegyada muhiimka ah. 12 saacadood waxay dadka reer Israel uga dhigan tahay muddo aad u dheer oo ay ku adeegan karaan ugana soo bixi karaan hawadii ay ka maqnaayeen muddada aadka u dheer ee dhulalka hoose ay ku jireen. haddana ay 12 saacadood qaadanayaan ugu yaraan qorraxaysi waxa loo yaqaan. laakiin wali digniinta ayaa dul taalo oo taliska ciidanka difaaca ee Israel ADF waxa uu sheegayaa in aan marnaba laga fogaan karin goobaha gabaadka halistuna ay xilli kasta jiri karto. waana mid dadku ay ku samayn doonaan dhammaan xal u helidda baahiyaha ay tabayeen muddada weeraradu ay socdeen oo ay ku soo gadan karaan aadana karaan suuqyada iyagoo waliba taxaddar ku jira. waa tallaabo nafis oo dadka tirabeelka ah ee lagu khasbay in dhulka hoostiisa ku jiraan 12 maalmood ee la soo dhaafay intii ay socdeen duqeymaha ka imaanaya dhinaca Tehran. dhoofitaanka dadka doonaya inay qaxaan dad aad u badan oo haysta dhalashooyinka wadamada reer galbeedka qaybna ka ah dadkii halkaa lagu deegaameeyay ee Israel ayaa si weyn u doonaya inay ka cararaan gudaha Israel oo ay ku laabtaan halkii ay ka yimaadeen. waana iyada durba in ka badan 20 duulimad diyaaradeed ay ka degan garoonka diyaaradaha ee Ben Gurion oo xirnaa 12 maalmood ee la soo dhaafay. dawlado badan waxay raadinayeen hab ay dadkooda Tel Aviv ku sugan uga daadgureeyaan halkaas, balse taas waxa caqabad ku ahaa gantaalada ku soo dhacaya ee ka imaanaya dhinaca Iran. Israel waxay ku dhawaaqday in la furay hawada maamulka oo hadda kadib diyaaradaha loo ogolaan doono inay degaan iyo inay baxaan. waxaana subaxnimadii hore saaka markii ay Iran duqeysay qaybo kala duwan oo kamid ah magaalooyinka ay gacanta ku haysay Israel bilaabatay in diyaaraduhu ay hawada ku laabtaan, laakiin hadda way soo laabanayaan oo si caadi ah ay ku soo degayaan. tan waxay fursad u tahay inay halka ka dhoofaan dadkii walaaca qabay ee doonaya inay guud ahaanba ka barakacaan magaalooyin ay ka mid yihiin Haifa iyo Tel Aviv. diyaarada aad u badan ayaa durba la soo tabinaya in diyaar u yihiin si loo daadgureeyo dadka halkaasi ka qaxaya. kaliya diyaaradda la yiraahdo Israel Airlines 25,000 oo qof ayaa tigidhadeeda gadatay, taasoo macnaha ka dhigan in haddii 10 maalmood ee soo socda xataa ay duulimaadyo wado oo maalintiiba ay 5 falaa in ka badan duusho aysan awoodin dadkaas qaxaya inay hal mar daabasho. inkastoo Netanyahu ku dadaalay in dadku bixitaanka loo ogolaan, haddana taas waxay u muuqataa mid suuragali weyday oo sinaba u shaqayn weyday. dhinaca badda waayid hore loogu tigaalsaday oo la cararay oo ilaa Qubrus ay tageen dad ka cararaya gantaalada ka imaanaya Iran ee ku dhacaya Haifa iyo Tel Aviv. laakiin hadda diyaaradaha ayaaba la furayo waaba cagtayda ay bixi. intuu habayn lagu sameeyay ayaa ka mid ah sidoo kale nidaamka difaaca hawada sare ee Israel. Tel Aviv waxa gabaabsi ku ah dhammaan hawlaha iyo gantaalaha la xiriira difaaca hawada sare, waxayna u baahan tahay hadda inay hesho gantaalada loo yaqaan Arrow ee sida dhameystiran uga hortaga gantaalada ka yimaada dhinacyada kale ee ka baxsan gudaha Israel. waxay doonaysaa Tel Aviv in muddada kooban ee xabad joojinta ay uga faa'iideysanto habayn lagu sameeyo nidaamka difaaca oo laga shaqeeyo arrimaha ka dhiman sidoo kale la hirgeliyo arrimaha laga maarmaanka waana iyadii Haifa la diiwaan geliyay iyo Beershabo saaka aroortii hore in gantaaladu ay shaqeyn waayeen nidaamka difaaca hawada oo si toos ah gantaalada Iran ay shalay iyo maantaba ugu hoobteen goobo kala duwan oo kamid ah dhulka Israel gacanta ku hayso. hannaanka difaaca hawada Iron Dome-ka waxa la sheegay in cilad ay soo wajahday, haddana loo baahan yahay ciladaas waqti lagu xalliyo in la helo. tani waa mid ay Israel kaga gaashaaman karto weerar mar kala dhaca iyadoo sii xoojinaysa arrimaha difaaca. warbaahinta gudaha ee Israel ayaana sheegaysa in annaanta la xiriirta nidaamka difaaca hawada dib u qaabayntiisa iyo habeyntiisu ay u baahan tahay waqti dheeraad ah, isla markaana 12 saacadoodba durba waxa la sheegayaa inaysan ku filnayn. dib u qaabaynta ciidamada
ciidanka cirka Israa'iil waxay heegan ku jireen 15 maalmood ee la soo dhaafay in la helo xabad joojin saacado koobanana waxa suuragal ka dhigi doonta in ciidanka heeganka waqti kooban ka baxaan si loo helo kuwa cusub oo shaqada soo gala iyo in dib loo habeeyo howlgallada dhinaca ciidanka garoomada diyaaradaha iyo diyaaradaha duqeymaha fulinaya ee masaafo dhan 2500 kilomitir duulimaadka u galay waxay u baahnayeen waqti dheeraad oo nasiina gaar ahaan beeloodyada ama duuliyaasha sare oo ay ku jiraan taliyaasha ciidamada oo u baahan waqti dheeraad inay helaan taliska ugu sareeya ciidamadu waxay hadda aadi doonaan marxalad nasiino kooban oo 6 saacadood ku siman sida ay sheegayaan saxaafadda gudaha ee Israa'iil wargeyska la yiraahdo Israel Yom ayaa sheegaya in muddooyinka la soo dhaafay 16 maalin oo kamid ah intii dagaalku u socday 4 bari oo ka sii horeysay 12 u tooska ahayd in saraakiisha ciidamadu ay heegan ku jireen oo markasta ay kabla yuur rahaayeen diyaaradaha dagaalkuna ay taagnaayeen dhabaha diyaaraduhu ku ordaan oo 3 daqiiqaba ay diyaarad soo degaysay midna kacaysay taasoo macnahaan ka dhigan in diyaaradaha Israa'iil iyo ciidamadoodu ay ku jireen dagaal dhameystiran ciidanka cirku haddana u baahday nasiino dheeraada inuu helo laakiin 12 saacadood sida ay ugu filan tahay weli dood ayaa ka jirta dib u qaabeyn xaaladda lagu sameeyo Israa'iil maalmihii la soo dhaafay waxa adkaatay shirar ay yeeshaan laamaha dawladda iyo kuwa difaaca waxa kale oo sidoo kale jira khilaaf xooggan oo mas'uuliyiinta maamulka u dhaxeeya gaar ahaan hay'adaha ammaanka ee dagaalka maamula wuxuuna salka ku hayaa duulaanka Iran iyo kan qasta ka socda oo Israa'iil ay wax guul ka gaari laadahay saacadaha kooban waxa la filayaa inay fursad isku helaan xubnaha maamulka iyagoo dib u qaameynaya dagaalka ay galeen kuna dadaalay in la sameeyo saxitaanka loo baahan yahay Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu arurnimadii hore waxa uu kulan la yeeshay saaxiibadiisa gaarka ee golaha ammaanka dagaalka waxayna ka wada hadleen sida meel mar looga dhig karo istaraatiijiyad dhameystiran oo ku wajahan in la maareeyo galka Iran maadaama hadda ay soo dhamaatay wajigii koobaad ee dagaalka 12 saacadood ee xabad joojintaana waxa la aaminsan yahay Israa'iil inay u tahay naruuro wanaagsan Tehran 12 saacadood maxay uga dhigan tahay Tehran waa iyadii lagu duulay 13 bishan isla jeerkaana xilli habeena la miray la dilay saraakiisheedii muhiimka ahaa magaaladana meelo badan oo military iyo xarumaha difaaca hawadaba meesha laga saaray hadda waxay haysataa waqti dheeraad oo iyana laftirkeedu inta Israa'iil ay u baahan tahay oo kale baahay u qabta halka ay ku kala duwan yihiin Tel Aviv iyo Tehran waa in dadku aysan guryaha iyo dhulka hoostiisa ku jirin oo reer Tehran magaalooyinka ayay isugu soo baxayeen oo mushaaxayeen iyagoo laakiin qaba dareen ka dagaal ee ay dhexda kaga jireen ayatollah Ali Khamenei iyo xirtiisu hadda waxay u baahan yihiin iyana si lamid ah sida uu Benjamin Netanyahu iyo xirtiisa dagaalku ugu baahan yihiin waqti dheeraad oo ay dib u qiimeeyaan waxyaabihii kala duwanaa ee ay ku hooseeyeen wixii ay ku fiicnaayeen waxa kale oo si dheer Tehran ay u baahan tahay nidaamkeeda difaaca hawada inay dib u eegto sidoo kalena jaajuusiintii iyo basaasiintii Mossad ee kala duwanaa ee la qabtay dib loo eego waxa kale oo ay hadda fursad u heli doontaa waqtiga mid aasashada oo ah kan ugu muhiimsan marka laga hadlayo dhinaca Iran oo saraakiil badan oo wax ku oolahay ku weyday dagaalkan tabin gaar ah ayaynu ku eegi doonaaye ilaa iyo hadda saraakiisha ay weyday dhinaca Tehran iyo muhiimadda ay ugu fadhiyeen waxa kale oo la filayaa in 12 saacadood gudahood ay mar kale isku arki doonaan hogaamiyaha ugu sareeya dalkaas Iran Ayatollah Ali Khamenei iyo madaxweynaha la doortay ee qoyar socodka Mas'ud Barashkani oo ay kaga wada hadli doonaan bal mustaqbalka Iran nooca uu ekaanayo iyo sida loo darsayaba taas waa waxa ugu weyn ilaa hadda dunida oo dhan ay isweydiinayso dagaalka kadib 12 saacadood Khamenei iyo Barashkani dhinaca u dhaqaajiyaan jamhuuriyadda Iran oo la kulantay toddobaadkii la soo dhaafay mid kamid ah dagaaladii ugu cuslaa ee dhinacyo kale oo dibadda ah ay la gasho gaar ahaan Israa'iil oo xilli hore ka sii adeegatay gudaha isla jeerkaana howlgab ka dhigtay nidaamka difaaca hawada beegsatayna saraakiishii ugu sareysay ciidamada ilaa ay sheegtay inay ku howlan tahay dilka hogaamiyaha ugu sareeya dalkaas Iran Ayatollah Ali Khamenei